kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaad wararka maanta telefishinka qodobada wararka maanta ugu door koronaya waxa kamid ah dagaal mar kale ka qarxay magaalada Gurceel isgaal geystay qasaare kala duwan oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo si wada jir ah war ugu soo saaray xaaladda dalka khilaaf soo kala dhaxgalay madaxweynaha Galmudug iyo saraakiisha hogaaminaysa dagaalka Gurceel CIA-da ayaa isar istaagtay cunaqabateen la saari lahaa Fahad Yaasiin dowladda federaalka iyo golaha kacdoonka gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan oo si kulul ugu jawaab celiyay hadal ka soo yeeray Yuusuf Tabageed daawadeedan cusubtaan ugu soo biir subscribe sarga magaalka fursad u jeedo wararka ugu dambeeyay kan soo dhigno waa maalinimo asniina taariikhdu ay ku beegan tahay 25 Oktoobar 2021 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran waxa saakar asaas goosgoos laga maqlayaa aaga jaamacadaha ee degmada Gurceel halkaas oo saacadii la soo dhaafay ay si weyn ugu dagaalameen ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinaca iyo xogaga Ahlusunna dadka ku sugan Gurceel ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay kala joogaan goobihii ay ku dagaalameen waxaana dagaalkii ugu dambeeyay ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala dhaxgalay labada ciidan dhinacyada ayaa saacadihii la soo dhaafay kala helay gurmudyo kala duwan waxaana maalintii saddexaad xaalad cakirnaana ay ka taagan tahay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud saacadihii la soo dhaafay warar soo baxaya ayaa sheegaya in Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan uu shalay dalbaday xabad joojin balse waxa warkaasi beeniyay wasiirka warfaafinta Galmudug Ahmed Falagle ma jirto ilaa hadda waan laga dhaxwado dhinacyada ku dagaalamaya degmada Gurceel oo hakin karta dagaalka waxaana dhinacyada dagaalamay ay kala sheeganayaan guulo kala duwan dhanka kale dagaal geystay qasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay bar control oo ciidan ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen bar control oo ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka Kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan saacad socday goobjoogayaal ayaa waxa ay ka waramayaan in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac isla markaana uu jiro qasaare ka dhashay dagaalka wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalku hal askari ku dhaawacmay sidoo kale ay ku burburay gaari booyada oo ay leeyihiin ciidanka Jubbaland isla markaana yaalay xarada la weeraray dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ayaa wal saxaafadeed ay soo saareen si wada jir ah uga hadlay arrimaha soo kordhay gaar ahaan xaaladaha bini'aadanimo ee dalka kulan ay isugu yimaadeen wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu gorfeeyay xaaladaha abaaraha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee bini'aadanimo ee ka jira gudaha dalkeena sidoo kale wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa diiradda saaray sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha haatan ka jira gudaha Soomaaliya wararka laga helayo maamulka Galmudug ayaa sheegaya in uu soo ifbaxay khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo saraakiisha dagaalka ka dhanka ah Ahlusunna hogaaminaya khilaafka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Galmudug uu culeys weyn kala kulmay dagaalkii shalay ilaa maanta ka dhacay Gurceel isla markaana lagu dilay saraakiil sarsare kuwa kalena dhaawac uu ka soo gaaray waxaa la isku khilaafay habka istiraatiijiyadda loo wajahay dagaalkii maalinka hor uu muuqday mid lagu fududaaday si fududna lagu laayay askarta iyo saraakiisha intaba Qoorqoor ayaa aad u daneynayay oo kaliya Gurceel oo Ahlusunna ay dibajoog ka yihiin balse waxay noqotay culeys wuxuuna saraakiisha uu ku amray inay dagaalka wadaan balse waa taamida la isku fahmi waayay dagaalkii ka dhacay magaalada Gurceel maalnimadii Sabtida ayaa ka duwnaa midkii shalay dhacay waxaana saraakiil waliba oo dagaalku ku jiray uu ku xisaabtamayay hubka uu wato iyo askartiisa intaba waxaana shalay yaraa qasaarihii markii loo eego kii dhacay Sabtidii warbixin dheer oo wargeyska New York Times uu ka qoray howlgallada hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ee Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday sida ay hay'adan ugu dhex milantay siyaasadda Soomaaliya New York Times ayaa shaacisay in CIA-da ay soo istaagtay isku day la doonayay in hadda ka hor cunaqabateen lagu saaro taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo warbixinta New York Times ayaa sheegtay in sababta Fahad loo saari lahaa cunaqabateynta ay tahay in uu taageeray isku daygii uu madaxweyne Farmaajo bishii Febraayo ku sameeyay muddo kororsiga kaasi oo horseeday dagaal ka dhacay Muqdisho CIA-da ayaa saldhig
ku leh garoonka Muqdisho waxayna si dhow uga shaqeysaa hay'adda NISA dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Taliyaha CIA ayaa fariin qaldan u dirtay saraakiisha Soomaaliya oo ku saabsan ahmiyadaha Mareykanka sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha reer galbeedka waxay arkeen in afka iyo jirka ay kala sameynayaan laba wax oo kala duwan waa jahwareer. dhinaca kale warbixinta ayaa sheegtay in CIA-da ay howlgallo qorshaysan xilliyada habeenkii ka fuliso magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu ogaarsado xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. mid ka mid ah howlgalladaas ayaa waxaa bishii November ee sanadkii tagay ku dhintay sarkaal CIA ah oo lagu magacaabay Michael Kopi oo 54 jir ahaa ayaa ku dhaawacmay qarax gaari oo uu saameeyay sarkaal Al-Shabaab ah oo la erinayay xilli habeen waxaana la qaaday isbitaal militariga Mareykanka ay ku leeyihiin Jarmalka oo uu ku dhintay 12 maalmood kadib. golaha kacdoonka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa si isku mid ah uga jawaab celiyay hadal shalay ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed kaasoo sheegay in magaalada Beledweyne uu imaanayo madaxweynaha Hirshabelle Ali Cabdullaahi Xuseen Guulaabe. hogaamiyaha golaha kacdoonka gobolka Hiiraan Jarnaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa sheegay in Ali Guulaabe uusan imaan karin Beledweyne isla markaana aysan jirin wax wada hadal ah oo dhaxmaray golaha kacdoonka. waxa uu sidoo kale si kulul uga jawaabay hadalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo sheegay in Ali Guulaabe uusan imaan karin Beledweyne isla markaana ay ogol yihiin in Beledweyne ay ka dhacdo doorashada aqalka sare aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. hadalladan ka soo kala yeeray golaha kacdoonka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa imaanaya xilli Yuusuf Dabageed uu shalay magaalada Muqdisho ku sheegay in Beledweyne uu tagi doono Ali Guulaabe inta aysan dhicin doorashada aqalka hoose. waxaana hadalka Dabageed uu imaanaya xilli uu dhowaan sidoo kale Beledweyne uu ka dhex sheegay in wax walba oo tabasho ah oo ay qabaan reer Hiiraan la dhamayn doono doorashada kadib. waxaana hadalkiisa shalay uu mar kale cirka ku sii shareeray xiisadda siyaasadeed ee ka dhaxaysa Hirshabelle iyo reer Hiiraan oo markii horeba cakirnayd. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay ka hortagay weerar qarax ah kadib howlgal ay ka sameeyeen gudaha magaalada xebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. howlgal oo ay fuliyeen ciidamada nabad sugidda ee maamulkaas ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyay xaafadda Farjano ee magaalada oo xarun ku meel gaar u ah Jubbaland. qoraal ka soo baxay taliska ayaa waxaa lagu sheegay in dadka shacabka ay ku soo wargeliyeen miinadaasi kadibna ay ku guuleysteen in laga hortago qaraxaasi. sidoo kale taliska NISA ee Jubbaland ayaa u mahadceliyay dadka shacabka ah ugu mahadceliyay sida ay ula shaqeynayaan ciidamada ammaanka. howlgallada ka socda magaalada Kismaayo oo muddooyinkii la soo dhaafay ay wadeen ciidanka amniga. Kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka loo qorsheeyay in ay ka dhacaan doorashooyinka dalka gaar ahaan tan golaha shacabka oo dhawaan ka bilaabanaysa dalka. intaas aynu kusoo afmarin markaad kala socoteen Samareeb TV. inta warkan war lamadan kulma doono waxaan idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.